jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalka kadib maalmo uu ku maqnaa dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii uu ku sugnaa dalka Sacuudiga oo mas'uuliyiintaasi kala hadlay arrimaha labada dal sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo isna maalmahan ku maqnaa dalka Mareykanka ayaa isna galabta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho waxaana uu ka warbixiyay safarkii uu ku joogay magaalada New York ee wadanka Mareykanka sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka tacsiyadeeyay dadkii galabta ku dhintay qaraxii ka dhacay